maanta waxaan gurmad biyo ah la soo gaarnay dadkan ku nool nawaaxiga garoonka saad u jeedaan dadkan waa dad maartay xoolo dhaqato ah noloshooda ay ku tiirsaneed xoolaha iyo beeraha waayahan dambana abaar kulul ayaa wadankii saameysay taasoo waxyeeleysay ama baabi'isay gebi ahaanba noloshii ku tiirsaneed beeraha iyo xoolihii oo arkaysaan maanta meeshan soo marnay socdaalkeena ariga dhamaanayo lo'dii iyo guud ahaanba maartay dadkii oo ku sugan ama xaalad rajabeel oo dhankii xoolaha maartay xoolaha ay dhamaanayaan taana cilada ugu weyn oo jirto waa biyo la'aan saad aragtaan dadkii biyo ma haystaan nololna ma haystaan dhabtii waxaan ugu baaqaynaa koow dawladda Jubbaland in ay u soo gurmato oo maartay gurmad degdeg ah dhanka biyaha iyo raashinka dadkan in loo sameeyo guud ahaan dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga ah hay'adaha samafalka waxaan ognahay gobolka in ay ku sugan yihiin hay'ado badan ama kuwa caalami ama kuwa maartay maxalli ah kuwaasoo magaca dadka shacabka maartay Jubbaland ku soo qaatay dhaqaale maartay ama samafal waxaan leenahay dadku waa in loo imaado oo halka ay ku nool yihiin noloshooda sida ay tahay maartay la arko cid kasta oo kaalin ka qaadan karta ama dhanka biyaha ama raashin ama hooy dhamaan maartay ama caafimaad ugu deeqay kartana waan ugu baaqaynaa dadkan in loo imaado oo la arko maxaa noloshooda sida ay ku sugan tahay waad arkaysaan xoolihii way ka dhamaadeen abaar kulul baa jirta beer ma jirto noloshooda marka aad bay u liidataa kala jirta lama roob waa sanade abaartuna haysa lama sanaba iska dhig laba sano abaar jirta haddii ilaahay idmaaho awinaad ma leh oo awinaad haddii ilaahay idmaaho nala ku caawimaa waa haddii ilaahay idmaaho wax dhinta iyo wax nolol xun ku nool waaye xoolaha maha jooga laba sano waa gartay ma jiraan xoolo ay laaysay abaarta waa jirta waa buux waa kuwa jafafkan yaallo ari iyo lo u badan